السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركن وعشركي لباتني اللبات ماددي managerial accounting أيام ولي وضنا انت اينا عشركة اينا باللابن ما انت طبعا موقالكني ما انتو جمعان دوبينا اسلا ما انتو جمعونا سو سيدين دونا بيشي سقالات ويه ardayda fursada u haysato ee ku jirto groupka telegramka waxaan soo dhigi doonaa linki iyo iclaan in aan habeen dambe kulmi doono oo aan ka hadli doono insha Allah taala shahaadada ACCA ayaan insha Allah taala ka hadli doonaa marka kulankaasi live u ahaan doona zoomka ayaan ku gali doonaa ama Google Meet ka andho linkigana groupka telegramka ayaan soo dhigi doonaa dabcan groupka telegramka qaybta descriptionka ayaad ka heli kartaa waxaana dhigi doonaa insha Allah taala commentiga ugu horeeyo sifa aad ugu soo biirtaan ka soo qaybgal hadii aad tahay ardayda ku xiran waxa weeyaan kulankaasi wixii su'aalo aad qabtaan halkaas insha Allah taala ku wada sheekaysan doonaa mudana isla qaadan doonaa caawa ma aha muuqaalka caawa soo galnina jimco waaye habeen dambe oo ah maalinta ay axada soo galayso ayaan insha Allah taala isla kulankaasi gali doonaa markaan taa aan dhinaca uga imaado waxa website-ka Share Xirfad aad ka heli kartaa koorsooyin kala duwan macallimiin kala duwan ay soo gudbinayaan waxaan koorsooyin ku soo gudbiyay website-ka dhowr koorso ilaa 5 koorso 5 koorso oo calaaqo la leh qaybta accounting-ka Excel-ka QuickBooks waxa aan idinku bishaaraynayaa inaan Excel-ka iyo QuickBooks aan qiimo dhimis aan ku sameynay lana waxaan aaminsanahay in ay yihiin soft skills-ka aad ardayda ay u baahan yihiin koorsooyinkaasi laga faa'iideysto aan bilowno waxaan soo dhameynay waxaan ku jirnay casharadii ahayd inaan isbarbar dhigaynay ku diyaarinta warbixinta income statement-iga ee qaybta variable aan ku diyaarinaynay ama qaybta absorption-ka wadada variable method ama absorption method ka macnaha wadada kulminaysa way wax walbaba طبعا casharada horaan u soo qaadanay maanta waxa aan qaadanayna waxa weeyaan in aan iswaafajino farqiga u dhaxeeyo natiijada ka soo baxday labada wade horayna waan u soo qaadanay laakiin markii hore aan soo qaadanay mithaalkii hore aan ku soo qaadanay wuxuu ahaa mithaal ah in absorption-ka uu ka weyn yahay variable-ka hadda cagsigii waaye farqiga maxaa keenay marka maxaa cagsiga ka dhigay haddii aad ila socoto sanadka labaad shirkadu waxay iibisay 30 baskiil ayay iibisay halka wax soo saarku ahaa 25 farqigana uu yahay mid ka yimid sanadkii la soo dhaafay bimacnaa waa mid ka imaada inventory-ga 5,000 inventory-ga ugu jiray iyo wixii ay soo saartayba sanadkan way iibisay mar haday sida ay dhacday sidee baan natiijada isku waafajinaynaa haddii laga dalbado in aad iswaafajiso natiijada imtixaanaadku waa lagu keenaaye qaybta variable costing-ka daa'iman ku bilow natiijadii ku soo baxday bimacnaa copy paste soo dheh waxaad ka soo raraysaa warbixintii aad diyaarisay waa cash marks oo inaad qaadato ay tahay haddii imtixaanka ay kugu imaado idan waan soo raray macallin waxaad u laabataa warbixinta labaad ee qaybta absorption-ka aad ku diyaarisay ayadana natiijadii soo rar labada natiijo horey baad u diyaarisay ama waa lagu siiyay waan soo rarnay farqiga u dhaxeeya keen basic mathematics way farqiga waan soo saarnay farqigani marka waxaad go'aamisaa ma aad baa mise waa deduct maadaama 60 ay tahay halka absorption-ka 230 ay tahay aan rabno inaan iswaafajino maxaan sameynaynaa marka absorption-ka ayaan ka jaraynaa 30 kan laga jarayna xaguu ka imaanaya waa inventory-gii aan soo rarnay way marka deduct baan leenahay maxaa laga jarayaa fixed manufacturing overhead cost released from inventory-gii wixii aan ka soo rarnay laga soo sii daayay ayaan ka jaraynaa marka waxay ka dhigan tahay in dakhligu uu yahay 230 ka farqiga qaybta variable-ka ka soo muuqanayo waa mid leesh ay inta uga soo muuqanaysa 260 li'anno qaybta variable-ka ahi ma i'tiraafsana mar kaliya waxay i'tiraafsan tahay wixii manufacturing ah fixku maynan i'tiraafsanayn oo waxa ay ku daraysaa qaybta period-ka ay ku daraysaa
insha allah inaan intaa isla soconno ayaan rajaynayaa. 60 kan per unitka sida lagu soo saaray waxa weeyaan fixed manufacturing overheadka ayaa loo qaybinayaa unit produced. sanadka waxa ay soo saartay shirkadu labadii sanaba 25 unit ayay soo saaraysay. 25 unit ay soo saaraysay. farqigu wuxuu ahaa waxa keenay iskhilaafka waxa keenay marna waxay iibisay wax ka yar intii ay soo saartay, marna waxay iibisay wax ka badan intii ay soo saartay. I hope inaan intaa isla hayno. markii aan isbarbar dhigno natiijooyinka qaybta net income-ka ahi labada wado, costing method-ka qaybta absorption-ka iyo variable-ka, first period-ka maxaa noo soo baxayay? first period-ka xooga ii saar hadda. first period-ka waxaa noo soo baxay in absorption-ka uu na siiyey 120 halka variable-ka uu na siiyey 90 net income-ka. sababtu waa maxay? sababtu waxa weeyaan qaybta absorption-ka waxa fixed manufacturing-ka waxa ay ka soo qaaday in ay ka mid tahay qaybta manufacturing-ka, qaybta cost of goods sold-ka. maadaama oo fixed-ka ay ka mid tahay qaybta cost of goods sold-ka, kaliya waxa ay dul saartay warbixinta wixii la iibiyey. maadaama oo waxba aan la iibinin kharashaadka cost of goods sold-ka waxa ay ka yareed marka loo barbar dhigo kharashaadka dhammaan variable-ka. لأنه variable-ka fixed-ka waxay ka soo qaadaysaa period inay tahay. maadaama period tahayna dhammaan ama waxay iibisay kharashka ku baxa ama yuuna ku bixin period marba hadduu yahay waxa ay ka soo muujinaysaa warbixinta. idan kharashaadka variable-ka ay soo muujisay ayaa ka badan kharashaadka ay soo muujisay absorption-ka. absorption-ka waxay dib u dhigtay 5 unit kharashaadkooda ayay dib u dhigtay. okay, maadaama oo 5 unit kharashaadkeeda dib u dhigtay bimacnaa 30,000 oo kharashaadii dib u dhigtay, bimacnaa dakhligeeda ayaa sare u kacay, halka variable-ka ay ka jartay dhammaan kharashaadkii. maadaama kharashaadka uu ka badan yahay dakhliga ayaa hoos u dhacayo. first period-ka macnaha casharadii hore baan ku celinayaa. okay, qaybtan ii imow hadda second period-ka. second period-ka maxaa imaanayo? waxaa imaanayo aan ka soo qaybta absorption-ka dakhliga ay xaqiijisay waa 230. sababtu waa maxay? li'anno dakhliga shirkadda ay xaqiijisay waxa ay ku dartay kharashaadkii ay soo rartay iyo wixii markan ay iibisay. bimacnaa li'anno wixii 5,000 sanadkii hore iyo wixii sanadkan la soo saaro dhan kharashaadkii dhan isku wada geysay. taaba waxay keentay marka dakhli kharashaadka ay iclaamisay in ay ka badato kharashaadka variable-ka. waliajli dhalika dakhliga absorption-ka hoos ayuu dhacay, halka variable-ka ay soo bandhigtay kaliya wixii kharashaadkay sanadkan iibisay. bimacnaa qaybtii la soo raray kumaynan saamoobin, waliajli dhalika dakhligeeda sare u kacay. laakiin total ahaan indhaha totalka markaad ku fiiriso labadu waa isku mid. arrintu waxa weeyaan kaliya classification lagu sameynayo kharashaadkii. qayb baa dib loo dhigayaa, midna way soo wada horumarinaysaa. farqiga halkaasuu ka imaanaya. insha allah inaan isla haynaan rajaynaa. okay, jadwalkan muhiim waaye, very important waaye jadwalkani. okay, 3 case baan wada qaadanaynaa. waxaan ka fiirinaynaa maxaan soo saarnay, maxaan iibinay. okay, saamaynta ay inventory-ga ku leedahay waa maxay? okay, income-ka net income-ka aan ku soo saarayna variable-ka iyo absorption method-ka sidee buu noqonayaa? okay, case-ka ugu horeeya iga qabo. case-ka ugu horeeyo waxa aan soo saarayno iyo waxa aan iibinayno waa isku mid. haddii uunan farqi jirin inventory-ga kuma saamoobayo. inventory-ga no change in inventory, laana wixii aad soo iibisayba waad gaday. labada wadaba isku natiijo ku siinayaan markaasi. absorption-ka natiijada kuu soo baxda waxay la mid noqonaysaa variable-ka. case number 1 ma iga haysaa?
case number 2 وسندكي كواد هدي مثالك على حسوسته case number 2 معناها مثالك سندكي كواد first period كي واي اوكي waxa aad soo saartay ayaa waxa ay ka badan yihiin waxa aad iibisay meeqaan soo saarnay 25000 meeqaan iibinay 20 ayaan iibinay okay maxaa dhacaya marka maadaama oo ay jirto qayb aan la iibinin inventory-gaaga maxaa ku dhacayo wixii aan la iibinin inventory-aad geynaysaa inventory-ga maxaa ku dhacaya marka increase okay absorption-ka net income-ka uu ku siinayo waxa uu ka badnaanaya variable-ka sababtu waa maxay li'anno qayb ka mid ah kharashaadka ayay absorption-ka dib u dhigaysaa halka dhammaan inventory-ga ay ka soo muujinayso qaybta warbixinta ولأجل ذلك ور income-ka net income-ka absorption-ka wuxuu ka badanayaa qaybta variable-ka case number 3 waxa aad soo saarayso waxa ay ka yar yihiin waxa aad iibinayso how come لأنه wixii sanadkii hore ee soo rartay inventory-ga kugu jiray iyo wixii aad soo saartaa isku wada dartay markaas aad wada iibisay okay maadaama waxa aan soo saarnay waxaan iibinayno iyo waxa aan soo saarayna isku mid ahayn oo waxa aan soo saarayna uu ka yar yahay waxaan iibinayno inventory-gana maxay ka dhigan tahay inaad inventory-ga dib ugu laabatay oo qayb ka mid ah inventory-gaaga aad iibisay mar hadday sidaa ay dhacdo absorption-ka natiijada net income-ka ee wadada absorption-ka wadada dhameyska tiran ay ku siinayso waxa ay ka yaraanaysaa variable-ka ay ka yaraanaysaa haddii mithaalkii hadda ugu dambeeyaan qaadanay absorption-ka wuxuu ahaa 230,000 halka variable-ka 260,000 uu ahaa I hope in aan intaa isla hayno muhiim wey waxaan ognahay inay jiraan gaab iyo xeerar la yiraahdo gaab iyo IFRS labada xeerba waxay ku midaysan yihiin haddii warbixinta maaliga loo diyaarinayo external report in la isticmaalo wadada absorption-ka in la isticmaalo ayay ku midaysan yihiin yacni ma waafaqsana wadada variable-ka macnaha waxay ka dhigan tahay variable-ka waxaad isticmaali kartaa haddii warbixintaadu ay tahay internal kaliya warbixintaadu warbixin gudo maadaama marka ay xeerarkii ka soo horjeedo wadada variable-ka shirkadaha maxay sameynayaan waxay isticmaalaan absorption-ka ay isticmaalaan most companies waxay internal report-kooda waxay u isticmaalaan absorption-ka halkii ay ka isticmaali lahaayeen variable-ka oo maxay diidan yihiin inay soo saaraan laba warbixinood macnaha soo saaridda laba warbixin waxay ka dhigan tahay additional cost in separate variable cost system uu shirkadda uu lahaado for internal reporting ka duwan midda dibadda looga baahan yahay macnaha kharash dheeraad ayay ku tahay soo marka waxay leeyihiin waxaan isticmaalaynaa absorption-kana laga rabo ee xeerku nagu waajibiyey marka isticmaalka variable-ka aad u yaryahay laakiin imtixaanka waa lagu keenaa isagoo yaryahay yaa imtixaanka lagu keenaa marka inaad fahansanaato ayaa la rabaa fikradda inaad fahansanaato cashirka waxaan kusoo gabagabeynaynaa qaybta muraajaca yar yani mulakhas yar variable-ka iyo absorption-ka aan ku bilowno farqiga xaguu ka imaanaya ciladu iyo farqiga iyo meesha ay dhibka ka imaanaysa waa hal bandi waa haddii kharashaadku fix yihiin fixna ay ka sii yihiin manufacturing cost oo marka absorption-ka waxay leedahay anigu waxaan ka soo qaadayaa fixing manufacturing inay tahay product inay tahay sifa aan isku barbar dhigo revenue-ga iyo kharashaadka costiga markaasi aan aniga ay shirkadda samaysay halka ay variable ay leedahay maadaama oo kharashku uu fix yahay una calaaqa la lahayn production-ka maya waxaan ka soo qaadaynaa period waxaan isla naqaanaa period mar haddii la dhaho ama iibi ama ha iibinin in kharashaadkaasi ay tahay kharashaadka aad soo report garaynayso marka isha ay ku fiirinayaan ayaa kala duwanaanshahaasi ayaa natiijada kala duwan soo bandhigtay waxaan ku celinayaa insha allahu tacaala groupka telegramkan soo dhigi doonaa habeen dambe oo ah maalinta sabtida
ay sii baxayso, habeenka axadda ay soo galayso. waxaa weeyaan insha allahu tacaala kulan toosan qaadan doonaa, aan ku wada sheekaysan doono, mulakhas aan idinkugu soo gudbin doono qaybta shahaadaadka ee kulankaasi kasoo qayb gala. wixii macluumaadna telegramka ayaan soo dhigi doonaa. linkiga hoose, qaybta hoose linkiga ayuu yaalaa groupka telegramka. commentiga ugu horeeyana waan soo dhigi doonaa insha allahu tacaala. maalmaha soo socdana maalin walbaba isbuuc walbaba insha allahu tacaala naga fiisha cashira in aan soo gudbino biidni illaahi tacaala.